Cabdullaahi Jaamac Dhoore Indhaweyne waxa uu ku dhashay magaalada Beledweyne sanadku markuu ahaa 1956 bishii November 22. Dugsiga Quraanka wuxuu ku dhigtay Beledweyne afar goor ayuuna Quraanka ku naqtimiyay. Waxbarashadiisa dugsiga hoose Beledweyne ayuu ku qaatay. Dugsiga dhaxana waxa uu ku bilaabay Daafeed. Imtixaanka fasalka shanaad waxa uu markaas ku galay degmada Afgooye sanadku markuu ahaa 1971. Dugsiga dhexe markuu dhameeyay waxa uu noqday macallin BB-da 1972 ilaa 1975. waxa uu qayb ka qaatay ololihii farta Soomaaliga. Dugsiga sare waxa uu ka bilaabay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1975. sanad dugsiyeedkiisii waxa uu ahaa 1978 ilaa 1979 waana xilliga uu dhameeyay dugsiga sare. Macallin ayuu ka noqday iskuulkii 21 November sanadku markuu ahaa 1980 ilaa 1982. sanadku markuu ahaa 1983 waxa uu shahaado ka qaatay macad la oran jiray Somali Institute of Development and Administration and Management. sanadka markuu ahaa 1984 ilaa 1988 waxa uu dhigtay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed kulliyadii waxbarashada la foole. waxa uuna ka qaatay shahaadada BA. mar kale macallinimadii ayuu dib ugu laabtay 1988 ilaa 1991. waxa uu macallin ka noqday iskuulkii la oran jiray Galeer. burburkii dalka kadib 1992 ilaa 2006 waxa uu ahaa ganacsade. isagoo ganacsigiisa wata ayuu macallin ka noqday iskuul u furay Ibraahim Xasan Cadow. wuxuuna macallin ka ahaa 2002 ilaa 2004. Allah u naxariistay Cabdullaahi Jaamac Dhoore waxa uu noqday wasiirkii maaliyadda ee Galmudug xilligii madaxweyne Caalin. Cabdullaahi Jaamac hadda waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Afbarwaaqo. sidoo kale wuxuu ahaa nabadoon ka shaqeeyay horumarka iyo nabadda deegaanada Galmudug iyo guud ahaan geyiga Soomaaliyeed. wuxuu ahaa shakhsi jecel bulshada isu keenideeda, isla markaana sidoo kale waxa dadku ay ku tilmaami jireen inuu ahaa shakhsi nabadoon ah, cibaado badan, afgaaban, karti badan, isla markaana sidoo kale waxa uu ahaa shakhsi ay ka go'an tahay in bulshada Soomaaliyeed ay helaan horumar iyo barwaaqo iyo xasilooni. waxa uuna inta badan u dhundulolay sidii wax badan bulshada Soomaaliyeed ay uga bixi lahaayeen duruufaha adag ee waqtigan ka jira.